السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isu soo noqod wanaagsan daawadayaal. Waa Saad Cabdirasaaq Yacquub Channel. Weli waxaynu ku dhex jirnaa barashada Windows-ka. Maanta waxaynu baranaynaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kow taskbar-ka sida loo move gareyn lahaa. Taskbar horey ayaynu u soo sheegnay waa qaybtan hoose ee halkan ku jiidan waa taskbar. Taskbar-ka halkan yaala waad qaadi kartaa oo meel kale waad geyn kartaa. Si aad u qaado taskbar-ka waxa loo baahan yahay inaad hubiso horta taskbar-ka inuu lock gareysan yahay oo locket uu yahay ama in kale. Si aad u ogaato taskbar adoo jooga ayaa waxaad riixaysaa right click. Taskbar-ka meeshan madow adoo jooga halkan adoo jooga looma baahna. Meeshan maaha waxaad tagaysaa halkan taskbar-ka dushiisa waxaad riixaysaa right click kadibna waxaad hubsanaysaa in lock taskbar uu sax saaran yahay. Hadda sax ma saarna saan u jeedno sax ma saarna marka haddii uu sax saaran yahay uu sidan yahay hadda sax ayaa saaran oo ujeeda anaa xiray hadduu saan yahay ma move gareyn kartid oo ma qaadi kartid sababtoo ah wuu xiran yahay wuu log gareysan yahay. Marka si aan u qaadno log ayaad ka qaadaysaa adoo right click dhahaya log the taskbar saxa ka qaad kadibna dhabsi jiid kordhig aad qabanaysaa waad jiidaysaa meel kale ayaad dhigaysaa. Marka taskbarka sidiisa markaad qabato oo aad jiido isaga kuma soo raacayo sida hadda kan oo kale markaan qabto file explorer kan oo kale markaan qabto wuu ila socdaa saad u jeedaan waa kana waan wadaa wuu ila socdaa. Laakiin midkan isaga waad iska baxaysaa waad qabanaysaa ma sii deynaysid waad jiidaysaa meeshaad rabto markuu gaaro waad iska deynaysaa. Hadda kor ayaan dhignay ama se dhinacan midig ayaanu dhigi karnaa ama dhinacan bidix ayaanu dhigi karnaa. Laakiin meesha dadka ay badanaa wada yaqaanaan waa halkan hoose ee inta ah. Marka taskbar-ka sida loo move gareeyo ama meesha uu yaalo looga qaado meel kale loo geeyo waa sidaas. Waayahay moving icons habka shay loo move gareeyo moving icon waa inaad shay qabato sidan oo kale left click inaad dhab siiso oo aad jiido adoo left click sii haya waa sidan oo kale waa moving icons icon ama folder sidii aad u move gareyn lahayd waa sidan waad qabanaysaa waadna jiidaysaa waa habka loo sameeyo moving taskbar. Waayahay waxaynu kaloo baranaynaa maanta arranging application icons habka loo arrange gareeyo iconada. Icons waa kuwan hadda way isku dhex yaacsan yihiin saad u jeedaan mid waliba waan soo jiiday dhexdaan dhigay. Haddaad rabto inaad arrange gareyso waxaad samaynaysaa meel bannaan ayaad right click u dhahaysaa right click kadibna waxaad dooranaysaa sort by. Sort by haddaad doorato waxaad kasii dooranaysaa name ama size ama item type ama date modified ama show on desktop. Hadda tusaale ahaan name haddaan doorano waa wuxuu isugu xigsanayaa hab by name ah bbcc saas oo kale by size haddaad dhahdana wuxuu noqonayaa sida uu kala culus yahay. By item type haddaad dooratana waa sida isugu eg yihiin mid walba midka uu eg yahay ayuu ku aadayaa. By date modified haddaad dooratana midka loogu hor sameeyey ayaa kor maraya midka ugu dambeeyana hoos ayuu marayaa. Marka hadda badanaa waxaynu dooranaynaa by item type. Item type markaad doorato wuxuu noqonayaa waxa ugu sareynaya my computer ama this PC network saas uu noqonayaa marka sida dadka badanaa ay isticmaalaan waa arranging application icons intaas. Haddii isku dhex yaacsan yihiin waad hagaajinayso habkaas ayaad u hagaajinaysaa. Waayahay midkan waa icons haddii aad rabto inaad move gareyso an active window adiga kuu furan. Window waa maxay? Mid waliba oo adiga aad furto waa window. Hadda kan oo kale waa window ayaa noo furan. Markaan rabno inaan move gareyn maxaynu sameynaynaa point to the title bar-ka ayaad tegaysaa halkan waad qabanaysaa waadna jiidaysaa wakaa qaabkaas waxaynu u sameynaynaa moving an active windows shayga adiga kuu furan sida loo move gareeyo. Waayahay intaasna waa moving active windows. Resizing active windows habka loo resize gareeyo active windows. Resize waa cabirka marka la weyneynayo ama la yareynayo. Waxaad samaynaysaa geesaskan point to the handles waxaad tegaysaa geesaska markay fallaartii halka af ahayd isu bedesho fallaar laba af leh sidan oo kale hadda waan soo waday halkan ayaan keenay fallaartii waxay isu bedeshay fallaar laba af leh waad qabanaysaa waadna jiidaysaa marka waa resize. Geeskan tag borderka ama geesaska markaad tagto fallaartii halka af lahayd ee mouse pointerka fallaar laba af leh ayay isu bedelaysaa waka qaabkaas ayaa waxaynu u sameynaynaa resizing active windows. Movingna waa sidan. Maximizing active windows habka maximize loogu sameeyo window adiga kuu furan. Maximize waa in la weyneeyo oo shaashada lala simo. Shaygan hadda waa restore waxa waaye half waa dhexdu yaala haddaad rabto inaad weyneyso waxaad dhahaysaa
maximize calaamadan markaad qaybta sare joogto midda labaad dhinacan markaad kasoo tiriso waa labo dhankan markaad kasoo tirisana waa calaamada labaad inta ayaad riixaysaa marka maximize way ku qoran tahay waa shaashadii ayuu la sinaaday windowgii haddaad rabto restore down inaad soo restore garayso cabirkii hore aad dib ugu soo celiso waxaad riixaysaa restore down calaamadan ah shaygii wuxuu noqday mid restore ah oo soo restore gareeye ama booskiisii hore lagu soo celiyay minimizing on use habka loo minimize gareeyo minimize waxaynu samaynaynaa calaamadan minuska ah kan ayaanu dhagsiinaynaa shaygii ma xirna hadda wuxuu degay bottom of the taskbar waa kana halkan ayuu yaalaa markaad dhagsiiso uu ku soo baxayaa markaad minimize dhahdana hoos ayuu u degayaa marka intaas waa minimizing on use habka loo minimize gareeyo windowgii closing sida loo xiro habkaad u xiri lahayd close markaad rabto horta waynu wada naqaanaa extan haddaad tagto wuu xirmayaa shaygii adiga kuu furnaa waxaa jira nidaam kale oo loo isticmaalo oo calaamadan inta ah geeskan hadda midig ayaanu ka xirnay oo exta ah close ah haddaad timaado geeskan dhinacan ah oo iconka shayga sawirkiisa uu ku yaalo dhanka bidix ee sare oo aad laba jeer dhagdhag siiso shayga wuu xirmayaa waa kana halkan ayaad tegaysaa laba jeer ayaad dhagdhag siinaysaa sidaasna waa nidaam kale ee lagu xiri karo windowgii adiga kuu furnaa maanta cashirkeena halkaas ayuu ku sinaanayaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina asxaabteeni hore noogu xirnayd way ku mahadsan yihiin daawashadooda asxaabta nagu cusubna waxaynu ka codsanaynaa inay channelka subscribe saaraan si ay ula socdaan casharada halkan ka baxaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu